dhacdadii ugu la yaabka badneed ayaa ka taagan magaalada Hargeysa ee Somaliland. Ninkan Chinese-ka ah ee halkan idinkaga muuqda ayaa soo doonay gabadhan ugu dambeyn la sii doono. Balse maxaa ka dhacay goobtii meherka? Aabaheed ayaa soo istaagay asagoo ilmeynaya. Waxa uuna sheegay war aan si loogu farxin isla markaana ilintiisa ay qof walba ka qaracantay oo joogtay goobtii meherka. Sheekhan waa sheekii isku mehrinayay ninkan Chinese-ka ah iyo gabadha uu dhalay odagan ilmeynaya. Haddaba dhacdadan argagaxa leh ayaa hadda ka taagan oo lagu hadalhayn badan yahay Somaliland. Ninkan oo ah nin milyaneer ah isla markaana wadanka China ka soo jeeda ayay isbarteen gabar Soomaaliyeed oo ku sugan Hargeysa. Facebook ayay saaxiibo lilaahi ka noqdeen, ugu dambeynna xiriir jacayl ayuu u soo bandhigtay. waana ay ka aqbashay, balse gabadhu xiriir ayaa kala dhaxeeyay wiil Somaliland la jooga oo Soomaali ah. Gabadhan ayuu ninkan tusiyay lacag milyano ah isla markaana waxa ay ka aqbashay wax kasta oo asagu doonayay. Waa uu soo doonay, waxaana aabaheed ay u sheegtay inay doonayso nin Chinese ah oo uga imaanaya halka iyo China. Aabihii ayaa argagaxay markii hore oo dhan, inkastoo markii dambe lagu qanciyay inuu gabadhiisa bixiyo. Gabadhii ayaa ugu dambeyn ku qancisay odagii inuu ninkan aqbalo isla markaana uu ugu imaanayo gogoshiisa, isla markaana uu ku hirqinayo lacag aad u fara badan. Ninkan oo agtiisa aysan wax aysan wax qiimo ah ka lahayn ayaa soo doonay gabadhan si toos ah, ayuuna boorsooyin 2 milyan oo kun oo dollar u soo geliyay odagan. Ugu dambeynna halkan ayaa gabadhii lagu sii doonaa. Dadka halkan ka soo qayb galana waa xalfadii oo loogu magac daray ninkan odaga ah Mustafa. Gabadhana wagaceedu waa Raxma. Eheladii oo dhan ayaa arooska yimid meherka, isla markaana qof walba lacag intii uu doonayay ayuu halkaasi ka qaatay. Balse arrin la yaab leh ayaa ka dhacday goobta. Aabaha dhalay gabadha oo aan marnaba lacag u muuqanin, isla markaana Raxmo ay ka hor muuqato oo siinayo ninkan oo aan Soomaali ahayn, ayuu odagu aad uga walwalsan yahay. Balse dadku waa ay faraxsan yihiin oo kaliya waxa ay ka rabaan lacagahaasi iyo sidoo kale xalfadaasi quruxda badan iyo ninkaasi Chinese-ka ah oo ay ku darayaan gabadhoodii maadaama aysan ayagu uurka ka gubanaynin. Ugu dambeyn goobtan oo ahayd goobtii meherka, ninkan oo aan af Soomaali fahmaynin ayaa lagula mehriyay af Soomaali gabadha, isla markaana qabiltu dheh ayaa la yiri. Xariifkan oo 2 milyan oo lacag ah jeebka loo soo geliyay, 2,000 oo dollar ayaa turjumaan u ah, isla markaana dhahaya intaasi dheh. Sheekhuna waa uu isku mehrinaya, halkan ayayna wada fadhiyaan. Haddaba ugu dambeyn gabadhii waa la siiyay Raxma, oo ninkani farxadiisa ayaa baxaysa, qosolkiisa ayaana banaanka u yaala. Gabadhii oo doonayay quruxda badneed ee aan Chinese-ka ahayn, qashinka cunta ee Soomaaliyeed ee baariyada ahayd ee lugaha u dhunkaraysay oo aaminsanay inuu ku raaxaysanayo jirkeeda, ayaa haddeertaan la siiyay meherkiina waa uu dhacay. Sheekii ayaana isku mehriyay, balse maxaa ka dhacay goobtii meherka? Ninkii ayaa isla markii dharka laga bedelay sida caadiga ahayd, suudkii iyo sidoo kale taajkii ayaa gabadhii loola soo geliyay. Asagoo aan weli gabadhii taaban ayaana laga cunay lacago aad u fara badan. Ninkan ayaana diyaar u ah inuu raaco dhaqanka Soomaaliyeed oo ah marka hore gabadha waa in la mehriyo, lacag wixii laga bixi lahay lacaga badan laga bixiyo, kadibna gabadha sidaasi ayaad ku helaysaa. Ayaa marka hore ninkan laga dhaadhacshay oo gabadhan oo ah Raxma, isla markaana aabaheed la doonaysa lacag badan balse mustaqbalkeedu uu baabi'i doono, ayaa gabadhani ay farxad ku dareemaysaa oo aabaheed iyo dadka dhan ay ku farxad gelisay ninkan, isla markaana aabaheed uga qaaday lacago aad u fara badan. Gacanta ayaa loo geliyay. Ugu dambeynna arooskii ayaa dhacaya. Balse meherku markii uu dhacayay, aabahan Soomaaliyeed oo ilmeynaya isla markaana dadka dhani ay la yaaban yihiin ayaa farta ka saaray, isla markaana ku wareejiyay walaayadii sheekha. Sidaasi ayaana ninka gabadha lagu siiyay oo sheekhu uu ugu mehriyay. Balse meherku markii uu dhacay oo ninka gabadhii farta laga saaray, waxa uu sameeyay ficilkii gaalnimada ama sidoo kale Chinese-ku ama sidoo kale gaalada kale ay sameey jireen, oo ah in gabadha laga shumiyo afka isla meherka ama isla arooska dhexdiisa. Waana ficilkii oo adaga ka xanaajiyay, isla markaana uu odagu cirkaas iyo caada ku maray.
waxaa soo hadlay wiilkii xiriirku kala dhexeeyay gabadhan isagoo ilmeynaya isla markaana dhahaya lacagay ma waxaad iga qaaday Raxmo oo aan kartidan uga ku qaaday waxaadna ku dartay nin Chinese ah. ugu dambeyn gabadhan calafkeeda ayuu noqday Chinese-kii sidaas ayayna ku guursatay waxaana loogu dhigay Hargeysa aroos aan inaba caadi ahayn balse qofka farxadan oo dhan ka soo horjeeday isla markaana farxadan oo dhan ay dhibaysay oo uu arkay murugana ay u shidneed waxa uu ahay aabaha dhalay Raxma isla markaana iska ilmeynayay oo dhahayay Raxma ninkan aan isku dhaqanka aqoonin cunah masaska wasaqdana ka dharga dadkiisuna ay cunaan waxa xaraanta ah oo doofaarku ugu horeeyo aabo inaan ku siiyo aad ayaan uga xumahay balse sunduleys iyo lacag aad u fara badan ayaa farta laga saaray odaga sidaas ayuuna ku aamusay oo aankii ilintiisii la yiri warniyahow maxaad leedahay maad inaga aamustid maxaad la ilmeynaysaa qof kasta oo Hargeysa jooga waa uu yaabay qisada ku dhacday aabahan Soomaaliyeed isagoo raalli ka ahayn laga hoos qaaday gabadhiisii lacagna indhaha laga geliyay $50,000 Mareykanka ah ayaa gabadha looga dhigay meherkeeda horumaris ayuu ninka u dhiibay gabadha ayuuna farta ka saaray iyo dadkeeda iyadoo intaasi oo $1,000 qof kasta ay ku soo aaday oo joogay goobta meherka aabahu lacag badan ayaa la siiyay taasi oo gaaraysa $30,000 balse agtiisa waxba kama ahan oo gabadhiisii qiimaha badneed ayaa u muuqata waxa uu leeyahay wariya islaan ah oo gabadhayda ninkan mar-uun iga badbaadiya waxa uu isku dayay inuu ku qanciyo inuu deganaado Hargeysa balse waxa uu leeyahay waxaan la aadayaa halka iyo Japan iyo China iyo South Korea ninkan oo la yiraahdo Sun Chiu-min balse gudaha Somaliland lagu dhaxbaxshay Mustafa ayaa haddeertaan doonaya inuu hani la kaco ama sidoo kale Raxmo Qurux isla markaana uu geysto halka iyo China dadka Soomaaliyeed oo aad ula kaftamayay gabadhan ayaa dhahaya si baro sida loo kariyo dooliga baranbarada iyo sidoo kale jiirka iyo balaayo oo dhan sida loo kariyo si baro ayay leeyihiin ummadda Soomaaliyeed oo gabadhan commentiga kula kaftamayay balse arinta arooskan ugu argagaxa badneed ayaa ah in aabihii gabadha dhalay uu ku dhex ilmeeyay ninkan uu dhaqankii ku dhex bilaabay Chinese-ka kawaidada ka ahay ama caadiga ka ahay in gabar afka laga shumiyo hadaba ninkan oo ah nin taajir ah isla markaana la yiraahdo Sun Chiu-min Mustafa lagu dhaxbaxshay gudaha Somaliland lacagtii adduunka wata ayaa Somaliland haddeertan aad looga hadal hayaa balse wiilasha Soomaaliyeed ayaa dhahaya no anagu raalli kama yihiin waxa ninkani uu ku sameeyay gabadha xiriirka ninkii kala dhexeeyay ee Somaliland u dhashay balse GBI markii uu yiri nin taliya ah oo ka soo qayb galay arooska lacagna loo dhiibay ayaa dharbaaxyo indhaha u galiyay kadibna yiri iska aamus